bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalaha qaaliga, waxaan idin soo gudbinayaa sheeko qalbiga taabanayso. haddii aad rabtid abaalmarinta alleh iyo abaalmarinta aakhiro, hal mid sameey: iska indhitir dadka kale waxay sameeyaan, naftaada un diirada saar, dadka ha xukumin. haddii aad aragto gabar kale la fadhido oo haddana u labisnayn sida adiga aad rabtay, ama ay make up marsatay, walaalayaal, waxaa laga yaabaa in aad la fariisatid qof aad aaminsan tahay in uu wax xaaraan ah sameeyey. tusaale, sarwaalkiisii ayaa aada u dheer yahay, ama garkuu xiiray, ama garkuu gaabiyey. dadka ha xukumin. in aad dadka xukuntid laguma soo dirin. ha yeeshee, haddii aad wax aragtid oo aad u malaysid in aysan islaami ahayn ama sunnada iyo qur-aanka ku salaysnayn, waxaa korkaaga ah in aad nasiixo qarsoon qofkaasi u samaysid, kadibna ka dhaqaaqdid, arrintiisana aadan faafinin iyo ceebtiisa aad u qarisid. waxaan doonayaa in aan kusoo gabagabeeyo sheeko qurxoon. arrimaha layaabka ee uu qoray alusi raximahullah waxay tahay, waa sheeko ku saabsan arrin badankeena aan sameyn lahayn. alusi wuxuu yidhi, imaam ayaa ii sheegay. imaamka waxa uu yidhi, mid ka mid ah haween ayaan seexday, ama habeenada kamid ayaan seexday salaada cishe kadibna waxa uu ku riyooday rasuulka alleh sallallahu alayhi wasallam. kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu imaamka ku yidhi, yaa imaam, deriskaaga u sheeg inuu isaga deriskayga uu jannada yahay. haddaba imaamka ayaa yidhi, waxaan nafteyda ku iri ma samaynin, waad og tahay inuusan aniga iga hadlaynin. imaam ayaan ahay, waxaan ahay xaafid, waxaan ahay caalim, waxaan ahay mufti, laakiin isagu waxa uu ka hadlayaa qof fudud ee markaasi aan aqaano oo waxyaaba fudfudud wadada laamiga ku iibiyo, oo aan ahayn imaam, caalim aan ahayn, mufti aan ahayn. sababtuusan ugu qalmin in uu daris jannada kula noqdo rasuulka alleh sallallahu alayhi wasallam. haddaba waxa uu yidhi, xaaladda shaki ku jirto, arrintan waan ilaaliyey, yacni waan qariyey. laakiin habeenkii xigay isla wixii ayaa dhacay. habeenkii saddexaadna isla sidii ayaa dhacay. rasuulka alleh sallallahu alayhi wasallam ayaa soo noqnoqonayay ilaa aan ugu tago nin oo aan ku iri, alla nin yahow, rasuulka alleh sallallahu alayhi wasallam 3 habeen isku xigta ayuu ii imaanayay isagoo ii sheegayo, waxaad tahay deriskayga jannada. qof kale ayaa wuxuu ku yidhi, maxaad samaysay? xaaladan sidee ku timid? ehlu janno keliya ma aadan noqonin ee waxaad noqotay deriska jannada ee rasuulka alleh sallallahu alayhi wasallam. sidaa daraaddeed ninka waxa uu sheegay dood dheer kadib in uu ku yidhi, waa sheeko dheer, laakiin waan soo gaabinayaa. waxaan guursaday haweeney da'yar oo qurxoon, taasoo waalidkeeda si wacan bulshada u ixtiraamto. wuxuuna yidhi, haweenkii arooskeeda sariirtaa ayay ku dul fariisatay oo oohohin ayay bilowday. xishood ayaan u qaatay ama u maleeyey, way murugeysneed. waxaan ku dhahay, ha cabsanin, hawlwelin, hadhow ayaan isbaran doonaa. waxay tidhi, maya, taasi ma ahan waxa aan la ooyayo. waxay tidhi, uur ayaan zino ku qaaday. waxa uu yidhi, ma aqaano wax la sameeyo. haddii aan dibadda aado oo aan kashifo ceebteeda, yacni sheego, kadib magaalada idil iyo qoyskeeda way ogaan lahaayeen. ninkan duqa ah waa gabadha aabaheeda, kaasoo magaalada laga qadariyo, lama sii qadarinayo. haddaba waxaan go-aansaday dembigaasi inaan qariyo oo aan dembiyadeedii eego. alla ayaan ku dhahay, icafi, anigana gabadha waan cafiyey. hal mid ayaan sameeyey, ayuu dhahay. gurigeena ayaan ku xafiday gabadha, weliba qol kale. ugu dambeyn waxa uu yidhi, habeenkii ay dhalaysay canugeeda oo ay dhashay canugii nuunaheeda waan soo qaaday. wuxuu ku yidhi, wuxuu gabadha ku yidhi, canuga isii. gabadhi waxay tidhi, waan ku siin doonaa. habeenkii ay dhalaysay canugeeda, markay dhashay canugii waan soo qaaday. waxaan ku idhi, canuga isii. waxay tidhi, waan ku siin doonaa. canug qurux badan ayay dhashay. nuunaha waxaan u qaaday
salaada subax masaajidka aan aadi jiray waxaana si toos u aaday goor dambe masaajidka cuniga waxaan dhigay dhinac midig ee masjidka jamaacada ayaan u dhaqaaqay anoo hubinayo in cuniga aan arki karo marka imaamka uu yiri assalaamu calaykum dadka way baxayaan qof ayaa yiri astaghfirullah cunug ayaa halkan looga tagay subhanallah wuxuu yiri waan booday waxaana iri allah ilaahayow xaaskeyga badanaa waxay rabtay in ay yatiim ama agoon korsato xaaskeyga mar walba waxay rabtay in agoon aan waalid lahayn ay korsato isii canugaasi ayuu yiri xaaskeyga mar walba waxay rabtay in ay agoon aan waalid lahayn korsato isii canugaasi anaga korsanayne sidaa daraadeed canugii waan soo qaaday xaaskeyga ayaan siiyey waxaan xaaskeyga ku iri sheekadaada cidna uma sheegi doono laakiin qofku la hadlayay laakiin adiga ayaan kuu sheegayaa waayo waxaan rabaa awaalmarinta ah in aan jannada rasuulka sallallahu alayhi wasallam daris la ahaado hadaba walaalayaal qof qaladkiisa hadaad qarisid oo aad qaladaadkaaga bis ku mashquushid kadib waxa laga yaabaa in alle awaalmarin kaaga dhigo arin noocan camal ah waxaa turjumay Cabdiqaadir Nuur Asool.